بسم الله الرحمن الرحيم. إبا محله مولها خلقك مجن إله باله ملائكة خيركم وديو محمد بانور له اللهم صل وسلم وبارك عليه. كنت وعنا وناكسن ومركلة إيو برنامج كاني مضله يعني في شيء سنيني هل أبورك أو بهال أبورك عسيادك. ما أنت وحن كشيء كسندنا الله وقضب لبضع قضب وكلا هل أبورك يجنحسي حديثك كدحية maxaa ugu jira hal abuurku ama ganacsigu inuu hal abuur yeesho iyo qodobka labaad noqon doona xirfadaha looga baahan yahay qofka hal abuurka doonaya inuu sameeyo ururka doonaya inuu sameeyo ama kooxda haddii ka horeeyo qodobka maxaa danaha ugu jira ganacsiga in hal abuur jiro ama ganacsigu in wax cusub uu sameeyo isbedbedelka nolosha aadamaha isla bedelaysa waqtiga iyo deegaanka iyo hadba xaaladda lagu jiro waxay u baahan tahay la jaan qaado waxa ugu muhiimsan ay tahay in la jaan qaado ama wacida ugu muhiimsan ay tahay in ay la socoto waqtiga iyo xaaladaha isbedbedelayana waa dadka adeegyada siiya bulshada waa dadka wax soo saarka u sameeya waa dadka isla u haya waxyaabaha ay u baahan yihiin goobaha laga adeegto ama baahiyaha bulshadaasi daboolaya gacanta ku haya ganacsiga faa'iidooyin badan baa ugu jira in hal abuur jiro wuxuu ku dhisan yahay ganacsigu oo sees u ahi waa hal abuur haddii aan hal abuur jirin isku wada mid la noqdo ay sinaadaan isku wada wax la soo saaro waxa meesha ka baxaya in bulshadii qaabab kala duwan loogu faa'iideeyo in bulshadii waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin oo baahiyaheeda daboolaya ay helaan haddaba waxa uu hal abuurku faa'iido ugu leeyahay ganacsiga afar qodob baynu ka soo qaadanaynaa oo aynu ku soo koobaynaa waa qodobka koobaad hal abuurka danta ugu jirta ganacsigu waxa weeye hal abuurku wuxuu xallinayaa mushkiladaha haysta ganacsiyadeena mushkiladaha haysta ganacsiyadeenu way tiro badnaan karaan waana kala duwanaan karaan marka waxa kaliya ee lagu xallin karo waa in xalalkaasi aragtiyo jiraan fikrado jiraan dabeetana fikradahaasi la fuliyo dabeetana sidaasi mushkiladii ganacsiga kaga baxo isla markaasina bulshadii loo soo saaro wax ay intifaacsadaan oo ka faa'iideystaan markasta oo ganacsigu xalliyo mushkiladihiisana oo markasta bulshada mushkiladaheeda la xalliyo dabar weyn baa ka dhaxeeya bulshada iyo ganacsiga bulshadu waa cidda mushkilada ku haysata dareemaysa waa cidda ku dhacayso waa cidda aad arkaysa adiguna mushkiladaha ku haysta cidda ay saameynayaan waa bulshada kugu xiran iyo macaamiisha iyo dadka adeeganaya marka hal abuurku faa'iidada koobaad ee uu leeyahay waa inuu xalliyo mushkiladaheena mushkiladaha inaga haysta dhinacyada kala duwan ee shaqooyinkeena la xiriira qodobka labaad u muhiim ganacsiga hal abuurku ugu muhiimka yahay ganacsiga waxa weeye hal abuurku wuxuu kor u qaadayaa wax soo saarka ganacsiyadeena wax soo saarkaagu haddii markii hore heer uu joogay haddii uu wax kaliya ku koobnaa haddii uu qaab kaliya ahaa intaaba waxa lagu bedeli karaa waa in hal abuur jiro waa in wax cusub la soo saaro waa in wixii hore qaabkii uu yaalay laga bedelo ama loo bedelo marka wax soo saarkii baa badanaya wax soo saarkii waa ballaaranaya shirkadii ama waa ururkii ama waa kooxdii ayaa kobcaysa shakhsiyaadkii iyo dadkii kugu xeernaa ayaa iyaguna kula koraya oo la jaan qaadaya iskoritaankaaga marka waxay noqonaysaa in shirkadii ama ururkii jiritaankiisii uu waaro oo joogtaysi timaado markasta oo ganacsigu wax soo saarkiisa ballaadhiyana waa markasta oo u dhow yahay in uu bulshada u adeegayo ama macaamiishiisa qanciyo waayo adeegyada bulshada u baahan tahay ayaa ballaaran sidaas awgeedna waa in wax soo saarkeena kol kasta ballaarnaadaa
waa inaynu ka fakarnaa wax ka baxsan halka aynu joogno, waa inaynu ka fakarnaa kartoonka amaba boxka aynu ku jirno wixii ka baxsan. haddii aynaan ka fakarin oo ashyaada iyo waxa aynu ka shaqeyno keliya aynu ku koobnaano, ganacsigeena jiritaankiisa ama waaritaankiisii weydiin baa gelaysa. qodobka saddexaad hal abuurku faa'iidada ugu leeyahay ganacsiga waxa weeye hal abuurku suuq buu soo kordhiyaa ganacsiga. shirkaddu haddii wixii hore una iibinayso, haddii wixii hore una hayso, ururku haddii uu ka shaqeynayo wixii uu qaban jiray, haddii uu hayo wixii uu wax ku bilaabay, suuqii sida uu ugu sii jiraya waxay noqonaysaa sidii hore ugu jiray. laakiin marka hal abuur jiro, marka wax cusub la soo kordhiyo, marka wax jiray si kale loo dhigo, suuq way u soo kordhinaysaa shirkaddii amaba ururkii amaba kooxdii amaba ganacsigii. suuqaasi wuxuu noqonayaa in sheegii bato. ganacsigu wuxuu ku meel maraa oo suuqgeyntiisa kowka ah in la barto waxa uu yahay. kolka adeegyada aad qabanayso, waxyaabaha aad iibinayso, markastoo aad horumariso, markastoo aad wax cusub ku soo kordhiso, suuqaagiina wuu sii jirayaa. suuqaagii baad ballaadhinaysaa, dad cusub baad ku xidhmaysaa, wax cusub aad sheegto ood bulshadii la wadaagto ayaa jiraya. suuqgeyntu ma aha wax jiray in mar walba lagu celceliyo, la joogteeyo, in la sheego iyo in sidii loo bilaabay un loo sii wado. laakiin waa inay jiri karaan wax cusub oo bulshadu dantooda ay ka dhex arki karaan. qodobka afaraad uu hal abuurku faa'iidada ugu leeyahay ganacsiyadu waxa weeye tartanka ayuu qayb weyn ku leeyahay. tartanka suuqa, waxa aad ka shaqeyso dad kale oo ka shaqeeya baa jira, waxa aad qabato dad kale oo qabtaa baa jira. marka waxa aad kaga horumarayso, waxa aad kaga guuleysanayso dadka kula tartamaya ama dadka aad isku shaqada tihiin, waxa weeye inaad hal abuur yeelato. waa inaad wax ka duwan waxa ay sameeyaan aad samayso. waa inaad fikrad aanay haynin adigu soo bandhigto. waa inaad kaga horeyso oo aad soo kordhiso waxyaabaha aad kaga duwanaan karto, si adiga lagu xusho, si adiga lagu eexaysto, si adiga dadku dhankaaga ugu soo jeestaan. tartamayaashaasi haddii aynu inagu daba soconno ama ganacsigeena uu noqdo mid daba socda dadka aynu la tartamayno, waxay noqonaysaa in horumarkeeni uu yaraado isla markaana koobnaado. markastoo hal abuurkeenu jiro, markastoo hal abuurkeena aynu kabcino, waa markastoo uu suuqeenu ballaadho, waa markastoo aynu dadka aynu wax wada qabanno oo la tartamayno aynu ka horumarno isla markaana kaga fiicnaano waxaanaynu wada qabanayno. qodobka labaad aan doonayna ka sheekaysano waxa weeye xirfadaha looga baahan yahay hal abuurka. ha ahaado qofka hal abuur sameynaya ee fikrad doonaya inuu filin u bedelo, qofka fikradda leh, amaba deegaanka iyo kooxda fikradda dhexdeeda lagu fulinayo. waxa kow ka ah in marka la doonayo in hal abuur la sameeyo, in xirfadda dhiraandhirinta fikirka la lahaado. xirfadda in fikradahan la hayo lasoo dhiraandhiriyo, loo bedelo wax la aqbali karo, wax la liqi karo, isla markaana geli kara dheefshiidkeena. qodobka labaad ama xirfadda labaad ee caawinaysa hal abuurka waxa weeye in la barto qaabka wax loo baaro ama researchka sida loo sameeyo. waayo waxaanaynu hal abuuraynaa suuq buu u baahan yahay, inaynu suuqii baari karno, dadkii u baahnaa waa inaynu baarid gelin karno, waa inaynu wax ka qori karno, waa inaynu waxna ka soo saari karno. markaasaynu fikraddeennii sidii ugu wanaagsanayd usoo gudbinaynaa, isla markaana usoo bandhigaynaa. qodobka saddexaad waxa weeye in la barto xirfadda xallinta khilaafaadka. inta shaqo lagu jiro, inta wax la sameynayo, waxa badanaysaa waxyaabaha la qabanayo, marka waxa imanaya khilaafaad badan, waa la ismaandhaafi karaa. khilaafaadkaasi waa inaanay joojinin shaqadii, waa inaanay dadkii ku shaqeynayay ama shaqadu ka dhexaysay aanay kala dilin, waa in khilaafaadkii la xalliyo. qodobka afraad waxa weeye qiimeynta go'aamadan la qaadanayo maaha go'aan baynu qaadanay saasaynu ku qaadanay, laakiin waa go'aankii la qiimeyn karo, maxaa inagaga iman kara, maxaa kasoo kordhi kara, siduu usii jiri karaa iyo sidaynoo horumari karaa.
qodobka afaraad ee u muhiim ah waxa weeye laba qodob oo is waafaqsan in marka hal abuur la sameynayo laga fekero maxaa dadka dan u ah hal abuurka loo sameynayo iyo maxaa waxaanaynu qabanayno laftiisa tani ugu jirta waa inaan waxaanaynu sameynayno tayadiisi aanay liidanin isla markaasina bulshadii danteedii laga tegin tusaale ahaan inaanay waxaanaad soo saaraysa ka sarreynin waxa ay goyn karaan bulshada aad ka dhex adeegayso ama aad u shaqaynayso waxyaabaha kale ama qodobada kale ee muhiimka ah waxa weeye qodobka hogaaminta inuu qofku xirfadda hogaaminta lahaado dadkan uu la shaqaynayo iyo dadkan uu doonayo inuu wax soo wada saaraan iyo dadkan uu doonayo inuu waxaan uu soo saaray ka iibgeeyo inuu xirfadihii hogaaminta lahaado qaabkii loola dhaqmayo iyo qaabkii loo wada xiriirayo sidoo kale inuu lahaado xirfadda yool qeexashada amaba inuu dariiq xariiqasho samaysto oo strategy lahaado oo ku garan karo waxa uu doonayo iyo sida uu u marayo iyo sida uu soo saarayo waxa kale oo muhiim ah inuu lahaado xirfadda inuu qofku qaadan karo risk uu qaadan karo amaba uu qofku u bareeri karo khatarta in loo bareeraa waa waxa hal abuurka horumariya marka horeba waxaanaynu sameynayno iyo waxaynu doonayno ayaa ah wax cusub inaguna kalifaya inaynu khatar u bareerno waxa kale oo muhiima wada xiriirka ama sida loola wada xiriirayo ha ahaato gudaha dadku say u wada xiriirayaan ama ha ahaato dabadda dadka kaa jira si aad u wada xiriiraysaan qodobadaasi iyo kuwo kale ama xirfadahaasi xirfado kale ballaaran ayaa u muhiima hal abuurka ama hal abuur ganacsiyeedka waxaan rajaynayaa inaad idinku kororsan doontaan siina baari doontaan xalqadeena maanta inagu joogaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu